maansida magaceeda waxa la yiraahdaa Soomaalinimo waxa weeyaan qofka Soomaaliga mushkilad baa haysata waa bilaabaad soo qofka Soomaaliga identity crisis baa ku dhaca qofka Soomaaliga mar waa islaam waa muslim oo sunni weeyaan marna waa afrikaan marna waa Soomaali marna waa qabiil marna waa dawlad dibadda qofku Soomaaliga gibigiisa wuxuu ku jiraa uu israadinaya wax allaaliya wuxuu sheegtaa buu garan laayaa halkan intii aan joogay iyo halka markii aan joogay waxaan aad u dareemay qofka Soomaaliga inuu israadinayo cid uu yahay halkanna markaa mushkilad taasoo kala ah laakiin kaba sii daran baa jirta way anaga cidina lama degto laakiin idinka waxa idin la dega qabiilooyin kale iyo ummado kale iyo sinjiyada kale idin la dega idinku markaa maansadan waa nooga baahi badantiin way anaga Soomaali baa nagu xeersan laakiin idinka waxa idinku dhinac waxa idinka xiga qowmiyada kale idinka xiga waliba qowmiyadaha kalena dawlad baa wadaagtaan inaad isqeexi taqaanaa kolka oo waxa aad tahay aad isqeexi taqaanaa qayb weyn bay ka qaadanaysaa inaad dalkan ku faanto oo aad jigjiga ku faanto magaalada ku faanto haddaad si isqeexi kari weydo oo waxa tahay aad isqeexi kari weydo mushkilad weyn baa kugu dhacaysa oo garan kari weydo kani wuxuu ku yahay kana wuxuu ku yahay haddaad garan weydo mushkilad weyn baa kugu dhacaysa aan soo durko waliba nin baa markaa maalin la soo hadlay maasadu say ku timi marka garan maayo meel buu joogaa wuxuu yiri barnaamij baan daawaday heblaaya ku wareysanaysa caynka waxaan doonayaa inaan ku hambaleeyo waa sax wal mahadsantaan ku uu soo durka markaa wuxuu yiri waxaan rajeynayaa inaad tahay dadka aqligoogu furan yahay ee aan Soomaali diidka ahayn ee aaminsan midnimada Soomaaliyeed ee aan Soomaalida diidanayn marka xaafada aabiye maleer fidhiyo aan ka soo kacay maxaad u jeedaa baan ku uri marka Soomaalida diidanayn waxaan boqolkan calan iyo mixnadahan la inagu furay iyo waxaan madaxaaba ma garanaysaa marka Soomaali diid weeyaan waxaasi markaasaan ku uri inteed qurbaha joogtay markaas igu yiri wallahi carruurtaadan gabayada markii hore igu lamka carruurtaadan gabayadaada dhageysiyaa buu leeyahay marka carruurtayda ayaan gabayadaada dhageysiyaa buu leeyahay way marka 30 sanaad qorbo ku maqnayd 30 sanaad dalkii arag carruurtaadu maba xiiseeyaan oo gabayadaydaad ku sasabtaa adigii intaasaad maqnayd dalkaaga ma arag labadeena iyama Soomaalisan baan ku dhig markaa ana hargeysaan ku dhashaan ku koray iyama Soomaalisan labadeena maxaan uga socdaa markaa dareenka ku dhalatay waa qisada laakiin maxaan uga socdaa waxaan uga socdaa waxa weeyaan Soomaalidu waxay aad isku khaladaa sinjiyada iyo dawladnimada sinjiyadaadu waa Soomaali haddaad 100 calan taagato 100 calanka Israa'iil haddaad bartaa ka taagato Soomaali baad ahaanaysaa sinjiyadaada ninka isku dayay inuu ka bedelo ama isku dayay ku raad haddaad rabto inaad Soomaali noqoto Hargeysa tag haddaad rabto inaad Soomaali noqoto Muqdisho tag maaha Soomaaliyadu Soomaalinimadu waa inay magaaladaada taala Soomaalinimada jigjiga ka weyday Soomaalinimada aad jigjiga ka weyday Hargeysana ka heli maysid Muqdishona ka heli maysid Soomaalinimadaadu waa inay bartaa taala ninka isku daya inuu barxo sinjiyadaada ninka isku daya inuu barxo waa inaad la dagaalantaa ha ogolaanin marna ha ogolaanin mushkilad baa markaa jirta halka hore markaad u socoteed koonfur tagtana Soomaalinimadii calan bay noqotay Hargeysa markaad joogtina war inaga u daayay Soomaalinimada mixnadana ka sheekeynaya waa maxay haystaba haystaan Soomaalinimada Hargeysana Soomaalinimadii baa lagu bedeshay siyaasad halka shishana waxaad moodaa in siyaasadii gibigeediba laga dhigtay Soomaalinimo imika tusaalayn siinaya madaxweynaha Soomaaliyeed waayo madaxweyne Soomaaliyeed ku jooga imika hadduu jiro mee ila inagu madaxweyne inoo wada yahay ma jiro sinjiyadu siyaasad maaha sinjiyadu waa afka waa dhaqanka waa taariikhda waa ummadnimada weeyaan siyaasaddu se way ka duwan tahay siyaasaddu way isbedbedeshaa Soomaalidu Itoobiya noqon kartaa Soomaalidu Kenya noqon kartaa Soomaalidu Djibouti bay noqon kartaa Soomaalidu Soomaaliya noqon kartaa laakiin haddii labada la isaga ka daro waxa kugu dhacaysa waad iskaran waayaysaa
waxaas maxaan sheegtaa baad oranaysa waxaad sheegataad garan waayaysaa dibad waxa suura gala ninka calanka haysta inuu kuraado iskaga bax calanka maad seetaa may matiid Soomaaliya iskaga bax aad maad seetaa calanka buluuga may ka bax Soomaalinimada aad maad seetaa iskaga bax Soomaalinimada calanka buluuga soo qaata dikal ka bax Soomaalinimada waxaan anigu aaminsanahay laga yaabaa inay iga aragti duwantiin caawana rabaa inaan idin soo bandhigay waxa weeyaan sinjiyadu calan ma yeelato dawlad baa calan yeelata hadda igu waafaqsantiin iyo hadii kaleba sinjiyad ma yeelato calan laakiin waxa yeelata dawlad baa yeelata dawladda Itoobiya calan leh dawladda Djibouti baa calan leh dawladda Kenya calan leh Somaliland aan ku darsanaa anagu iyo dawladda Somaliland calan kale waxaan ka wadaa waxaan marka mafhuumka aan doonayay inaan idin sheega waxa weeyaan hatta aqbashaan ina Soomaalinimada Muqdisho iyo Hargeysa ugu tagtaan Soomaalinimada waa la idinka saari doonaa maalin dhow ha ogolaada in la idinka saaro Soomaalinimada waxa ogaataan jigjiga ka Soomaalisan maanta Allah idinku dhaariyay jigjiga ka Soomaalisan laba intaasoo kun oo qarni baa awooyaashin halkan deganaayeen oo qowmiyad kasta la deganaydeen haddana maanta marka jigjiga joogto wallahi baanu qof xabashi ku dareen af Soomaaliga waa wallahi waan wada dhageystay dhalinyarada oo dhan af Soomaaliga qofka reer jigjiga af Soomaali ka badax tiran oo sooca weeyaan intaasoo kun oo qarnina waxa la deganaydeen qowmiyada kala duwan yaa idinka Soomaalisan Hargeysa ma aragtaan nusba Ingiriis lagu wada hadlaa qof markuu hay'ad tago haaf Ingiriis ku hadlaa deegaankan yaa ka Soomaalisan deegaankan waa deegaankii geela ugu badan ee Soomaaliya ku dhaqnaa waa deegaankii gabayaaga ugu waaweyn ka soo bixi jiray deegaankan hadii Soomaalinimadiisa shaki la geliyo oo shaki loo geliyo maadaama calan kala sito yaa Soomaali noqonaya waxa isku daydaan markaa khaanada sinjiyadu waa khaanad aan muran galeyn magaaladaadana laga qaataa Soomaalinimada iyo sinjiyadaada meel kale looma doonto anigu Soomaalinimadeeda Muqdisho uma doonanayo Hargeysa waa inay igu timaadaa أنا هرجيسة كوكري أو كل شيء أنت هلا قدو قف يقول الصومالي متي هل كان الصومالي كنا قنايا هل كان تشجع أدو تشوجا هذا الصومالي كنا قن ويدا تشجع هل كان كنا قنايا الصومالي كنا قن ميسد ملا سياسة لكن واشياء كله سياسة إذن كاختيار كله هل دور كينا تشوجا سياسيين تنا تشوج مل الله السمدا مدوجا هذا واركتان سياسة السمدا مدوجا تجا إذن كالصومالية meel allaaliye meesha doontaan ku darsada idinkoo Soomaaliya siyaasadu kuma xidhna shalay 60kii Hargeysa waa la ooyay waxa loo ooyay midnimo Soomaaliya maantana lama soo hadal qaadi karo marka waxa la oranayaa shalayna Soomaali baa ahay maantana waa gaalo eeg siyaasadu way isbedbedeshaa shalay meel baad dan u arki karaysaa maanta uma arki karaysid shalay dawlad baad ka tirsan tahay maanta kama tirsan siyaasadu saasay isu bedbedeshaa dhibaato male doorasho lagu helaa waa dimuqraadiyad kolba dawladnimo ku xiran tahay taas calan bay leedahay baasaboor bay leedahay laakiin sinjiyadiina marna gorgortan hay gelinina hana ogolaanina in sinjiyadiina gorgortan la geliyo waxa ugu horeeya ee tahay waa Soomaali waxa ugu horeeya ee tahay waa Soomaali markaasaad noqonaysaa dawladdaada iyo baasaboorka aad seetiyo calanka aad seeto calankaagana taa ku sido sinjiyadaadana bartaa ku sido yaan la isku dayin labada la iska ka dhex dhigo oo lagu leeyahay Soomaali matiid hadaanad calanka Soomaaliland sidan Soomaali matiid hadaanad ka buluuga sidan yaan taa la isku in la iska ka dhex dhigo marnaba ha yeelin anigu waa sidan aaminsanahay Yaxya ahaan waa sidan aaminsanahay laakiin kulli way iga aragti duwanaan kareysaan marka waxaan doonayaa inaynu baranno inaynu kala aragti duwanaan karayno la aqbalina karayo lana liqi karayo in la kala aragti duwanaado inagoo isqancin iyo wada hadal ku dhameynayna ma sida magaceeda Soomaalinimo la yiraahdaa Soomaalinimadii marka waa la khalad fahmay Soomaalinimadii sinjiyada ahayd baa siyaasad laga dhigay waxaynu doonaynaa marka inaynu qeexno waxay Soomaalinimadu tahay ma sadana marka qeexaysa tixi waa sarbeeb surin ruux lahaa isagoo ku siman laga sogorto dabadeed soco cagta saar la yiri marna waa sifayn sugid iyo ilayn sixid iyo cadayn kolka shay samow sidii qorax ahaa caad loo sasabo luun kugu sarnaa
luun kugu sarnaa sacabkaaga oo subag laga shubtaa sahay kuu noqdee baabaca saluug surmi kaama tiro sir ma sheegayee waxaan uga socdaa Soomaalinimo mala seylad iyo sicir lagu gado han siyaasadeed lama siisan karo han siyaasadeed lama siisan karo diintaas soo waa kan qeexinteedii diintaas soo dhaqanka u sada dharku waa u sumad soorta u cada afku waa u sahay sabad iyo kobtuna saameyn ku leh Soomaalinimo qof su'aalayo calan kuma suntana cidma seeranoo qolo kuma sidkana mana aha salaan siyaasi meel sare ku koro sir maaha oo lama sii sarrifo lama yiraahdo anaa ka Soomaalisan anaa ka lama sii sarrifo Soomaali waa Soomaaliyoon sir maaha oo lama sii sarrifo waa siman Soomaalido waa sawrac iyo sinji aan ummada kaga soocano ma sariigan karo sagaal baasaboor ninka sii sitow Soomaalinimo lama seedhi karo Soomaalinimo qof ka saaris yiri sibiq ima tiro waa saxiix rabbigu idul saarayo xididkeeda sugan uma siibi karo haddii lagu sidko inta lagu sibciyo gaf siyaasi galay dawo saxal tirtiye looga dhiga sabiib wax ma saacidee sunta iyo ladhka seedaha gasho darsanaado oo Soomaalinimo saska qaadayay simankaas dhasha haddii maanta balaaya dhacdo oo la islaayo la isxasuuqo oon ku raado Soomaalida ka mas'uulahayd ka waran de kuwii la laayay way ka xanaaqayaan Soomaalinimada Soomaalinimada kolka ma qaadata iyadu gafka ma qaadata xataa haddii qof wax laayo qof wax xasuuqo qofkaas xasuuq xataa qabiilkiisa ma qofkaas unba ka mas'uula cid kale mas'uulka ma aha qabiilkiisu mas'uulka ma aha sinjiyada Soomaalida oo dhan qofka xasuuqa sameeyay qofka wax laayay unba mas'uulka ah haddii se lagu sugo oo Soomaalinimada la marmariyo de qaar ka booda soo baxaya Soomaalinimada saska qaadaya Soomaa waxaan uga socdaa ereygeeda samee waa saxar la'aan sifadu yahay waa qurux markaan leenahay ereyada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed maxayga qurux badana magacu marka saa leeyahay laakiin haddii uskag laynaga marmariyo kuwa uskaga la marmariyay baa ka xanaaqi doona magaca marka haynaga marmarinina uskaga siyaasadda Soomaalinimada haynaga marmarinina waxaan uga socdaa ereygeeda samee waa saxar la'aan sifadu yahay sahan aanay wadan magac aanay suran madax aanay sidan yaan lagu sawirin yaysaad u noqon sad bursiima iyo ninka saayid raba yay soo xisiyo dadka seexad farin marna sayma iyo cunfi lagu sallimin salfudaydka jaan waan salow badnee saajin raba dagaal yuu igu sasabin sideheeda bilan yaan la igu sirin Soomaalinimo waa jacayl sadriga ka saaqaye midna cayb ku simay yaan la igu surin yaan siiri wade koox kala la sifan qaladkayga sixin sababaynta guud waxaan uga socdaa way sal guurtayo way simbiitayo saxal baa galo waa lagu saxdaye Soomaalinimo haddii lagu siqo lagu kala sad yahay haddii baasha la kala xigo oo la kala leeyahay haddii baasha la kala leeyahay Soomaalinimo haddii lagu siqo lagu kala sad yahay siinay baan ku koray dugsigii sariya kaygii sokaba kobtanaan ku sugay saan qaadayo ilaa saakadaas sikin maan ka tegin af Soomaaligana suugaan tuxlaan siin kuu marshay Soomaalinimo sakad iga xiga maan sidaas intaasay ku eg tahay Audio Jungle